السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قيمة قيا بدن عادي أدنى السلام أيام ربنا كلا شوكتان. maanta waxaan sameynaynaa cashirkeeni sideedaad nooc cashirkeeni koobaad qaybtiisa sideedaad. Okay, quiz berlabatanti b oo af Soomaali ah. Okay, sidaad ogtihiin waxaan soo sameynay argumentaha koobaad dhammaan faahfaahintiisa iyo su'aalaha dulmaridooda manual ahaan. haddana waxaan ku jirnaa quizkiisa. marka argumentaha koobaad qaybtiisa sideedaad ayaan sameynaynaa maanta insha Allah biidhnillaahi kariim. Okay, waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontiin dhammaantiin insha Allah. waxaan rajaynayaa guul. Spostare la segnaletica stradale può comportare pericolo gravi per gli altri utenti della strada. wuxuu yiri spostare marka aan ka leexinayno ama mise aan leexino mase haddii la leexiyo spostare haddii la leexiyo la segnaletica signalka stradale oo wadada ku dhegan, macnaha calaamadahan oo wadada ku tilmaamaya haddii la leexiyo può comportare wuxuu keeni karaa ama sababi karaa pericolo halis u dhahay gravi oo aad u sareyso per gli altri utenti della strada, dadka kale oo wadada isticmaalay. tusaale ahaan oo kale meeshaan waxaa ku dhegan segnale di obbligo oo ku dhahayo dirita aad. adiga waa imaaday marka segnale di obbligo siibtay. Okay, qofkan marka obbligo dirita aad ku ahayd ma aadaya, hadduu rabo intuu aadaa kadib dhibaato la kulmaya altri utenti marka saas. Okay, la carreggiata non comprende le piste ciclabili. carreggiatada ka mid maaha piste ciclabile vero way perché carreggiatada piste ciclabile ka mid maahan laakiin waxay ka mid tahay la strada. Okay, nella strada rappresentata per ogni senso di marcia la corsia di sinistra è dedicata di norma alla marcia ordinaria. wuxuu yiri nella strada rappresentata wadada noo muuqato per ogni senso di marcia wada kasto hal jiha u jeed. labadan wadadan saddexdan koorsa halkan jiha u jeedaan, kuwan intay u jeedaan waqtiga. ogni senso di marcia la corsia di sinistra koorsada dhanka bidix ah è dedicata waxaa loogu talagalay di norma sida caadiga alla marcia ordinaria. corsia di marcia falso, corsia di sinistra sorbaasa loogu talagalay. Okay, laakiin marcia midigtu waa. L'isola di traffico può essere percorso solo dai taxi degli autobus urbani. isola di traffico può essere waxay noqon kartaa percorsa inay isticmaalaan solo keliya dai taxi tagaasiisha e degli autobus basaska urbani oo magaalada u shaqeynayo. falso è perché isola di traffico è una canalizzazione della corsia wide. I semirimorchi sono rimorchi privi di impianto frenanti. I semirimorchi rimorchiaci sono waxa waaye rimorchi waa rimorku dhahay privi waxaa laga wadaa without ama aan lahayn di impianto frenante farin aan lahayn. falso waa farin way leeyihiin rimorchiaci. Okay, privi. La strada rappresentata consente di norma il sorpasso anche in curva. la strada wadadu yiri rappresentata oo noo muuqato consente waxay ogolaanaysaa di norma sida caadiga il sorpasso inaan isku baasi karno anche in curva xataa wadada hadday qolocan tahay vero way perché dhowr wado waa mafahanta 1 2 3 darajaad ya. un incidente a bassa velocità non crea problemi di incolumità ai conducenti coinvolti. wuxuu yiri un conducente idraulica a bassa velocità un incidente shilku da a bassa velocità oo xawaan oo speed macnaha dad tartiib u socda hadday isku dhacaan camal ma ogtahay. wuxuu yiri marka non crea uu dhahay problemi ma sameynayo dhibaato yiri di incolumità oo caafimaad ahaan ay conducenti darawalada coinvolti oo ku lug leh. darawalada isku dhacay shil hadduu dhaco oo speedkoodana mid sare uusan ahayn dhibaato kale ma kulmaa. falso waa gaariga haddii uu marshada koowaad ku jirto xataa kan kalena marshada koowaad ku jirta isku dhacaan jaa dhibaato imaanayso. Okay, il conducente di un veicolo deve rispettare gli agenti del traffico solo se sono in divisa. allora il conducente idraulico di un veicolo oo gaarigooda deve rispettare waa inuu xishmeeyaa uu dhahay gli agenti nimanku yiri del traffico trafficada u shaqeynaya solo keliya se sono hadday yihiin in divisa kuwo oo la arkayo miya mise labesan miya mise ya falso waa.
alla guida di un veicolo in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari occorre essere prudente e tenere conto dei comportamenti imprevedibili dei bambini. Allora, alla guida di un veicolo markaan wadna gaari in vicinanza aan ku dhownahay di una piazzola di fermata meel u istaagaya di autobus basaska berescolare oo ardayda qaadaysa oo kore waxaana laga rabaa yiri essere inaan ahaano prudenti ku deganaan isticmaalaya tenere conto oo sidoo kale xisaabtan aan ku darsano ama iska qiimeyno dei comportamenti habdhaqankooda ama dabeecadahooda imprevedibile dei bambini oo ardayda vero waaye. I tricicli a motore sono veicoli a motore aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45. Secondo me falso è perché tricicli. Allora, i tricicli a motore sono veicoli a motore aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45. Tricicli speedkooda wuxuu ka badan yahay 45 km/h. Vero waaye, ok? Se una strada ricoperta di briciolini, il conducente può circolare a velocità sostenuta. Allora, se una strada haddii wadadu ricoperta ay dabooshay da briciolino dhagaxmanka yariiska jaimia wax noocaas, il conducente darawalku yiri può circolare wuxuu ku socon karaa velocità sostenuta. Secondo me è falso, non lo so. Le biciclette con pedalata assistita dotata di motore elettrico ausiliario di potenza massima fino a 25 sono definiti ciclomotori. Allora, bicicletta diventano ciclomotori, falso vai. La bicicletta o pedalata o la pedalina è assistita dotata di motore o nel motore elettrico ausiliario di potenza massima awoodiisana ay dhan tahay a 0,25 kW sono definiti waxay noqonayaan ciclomotor. Falso è. Quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna tenere presente che possono attraversare la strada solo se accompagnati da un adulto. Falso è perché quando bisogna ay joogaan ama ay jiraan bambini ilmi yaryar fermi kuwaasoo taagan al semaforo meesha semaforku ku yaal wadada ay rabaan inay ka goyn. Bisogna waxaa loo baahan yahay tenere presente inaan xisaabta ku darsano che possono attraversare waxay u goyn karaan la strada wadada solo keliya se accompagnati haddii la wado da un adulto qof weyn hadduu wado keliya. Falso è. Ilmaha haddii la wado xataa waa isaga dhacaan wadada. In un centro abitato è sempre consentita la marcia per file parallele. Fila parallela non è consentito mai ragazzi, ok? ilaa macnaha qofka booliska dhahay fila parallela ku socda inta kale no. In vicinanza di un attraversamento pedonale il conducente deve considerare che i veicoli parcheggiati in prossimità delle strisce impediscono la visuale dei pedoni. Allora, in vicinanza markaan ku dhownahay di un attraversamento pedonale meelaha dadka ka goynayaan il conducente darawalka deve considerare waa inuu ku darsadaa xisaabta che i veicoli baabuurta parcheggiati oo ku baakimisan in prossimità meesha ka horeysa della striscia la striscia macnaha baabuurta meesha oo striishada agteeda ku baarkiman ama ku soostaysan impediscono waxay caqabadeynayaan la visuale aragtida dei pedoni dadka. Vero waaye perché meeshaan attraversamento pedonale waa gaariya hortaada ku baakiman qofkii ma hore ma ka arkaysid markii impediscono way caqabadeynayaan waaye, ok? Vero. Alla guida di un veicolo in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolare non si può proseguire nella marcia se le portiere della scuola bus sono ancora aperte. Allora, alla guida di un veicolo marka aan wadna gaari in vicinanza aan ku dhownahay di una piazzola di fermata di autobus meel uu bas istaaga scolare oo ardayda qaada non si può proseguire kuma sii socon karna nella marcia macnaha gaariga hore uma sii wadi karan waa inaa istaagna camal moogtahay. Se le portiere haddii uu albaabku yiri della scuola bus oo baska ancora aperta u furan. Falso waa socon kartaa laakiin taxadar waa inaa sameysaa, ok?
I veicoli a due rotte con motore termico fino a 50 cm a cilindrata velocità massima 45 sono ciclomotore. Allora, i veicoli a due rotte con motore termico fino a 50 cm a cilindrata a velocità massima di 45 sono ciclomotori. Sono ciclomotori secondo voi? Falso, non sono ciclomotori, ok? In vicinanza di un attraversamento pedonale il conducente deve considerare che i bambini potrebbero avanzare sulla striscia per poi tornare indietro improvvisamente senza motivo apparente. In vicinanza marca ancora un attraversamento pedonale. Meelay dadka ka goynaan il conducente darawalka deve considerare waa inuu ku xisaabtamo che i bambini ilmaha yar potrebbero avanzare waxay gali karaan sulla strisciada per poi sidoo kale tornare waxay usoo noqon karaan indietro gadaal improvvisamente si kadisa senza motivo apparente ayagoo wax sabab ay usoo laabteen ay jirin oo iska soo laaban karaan beerwan. Bisogna usare maggior prudenza nei confronti dei conducenti che dimostrano una guida incerta. Allora, bisogna usare waa inaan isticmaalnaa yiri prudenza taxadar badan nei confronti marka aan la kulmayn masaan aragno yiri dei conducenti darawalka che dimostrano kuwaas oo habdhaqankooda uu yahay una guida incerta. Guido hubaa lahayn waa inaan prudenza sameynaa beerwan. I quadricicli leggeri ai fini della circolazione sono assimilati ai ciclomotori. Quadricicli sono assimilati ai ciclomotori, vero? Quelli leggeri. Bisogna usare maggior prudenza nei confronti dei bambini che attraversano la strada. Bisogna usare waa inaan isticmaalnaa maggior prudenza deganaan badan nei confronti marka aan la kulano dei bambini ilmaha yaryar che attraversano kuwaasoo goynaya la strada, vero waaye. In una zona a traffico limitato possono circolare solo i veicoli autorizzati. In una zona meel uu yiri traffico limitato oo traffic laga xadiday possono circolare waxaa gali kara uu yiri solo keliya i veicoli autorizzati, baabuurta la sharciyey, vero waaye. In vicinanza di un passaggio a livello si trovano i pannelli distanziometrico. Distanziometrico waxaa waaye saddexda karteelo oo cad oo calaamad guduudan ay ku taalo, saddex calaamad guduudan, laba calaamad guduudan, hal calaamad guduudan waa distanziometrica kuwaas lahaa, vero waaye, ci sono. In vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolare può accadere che i bambini scendono dall'autobus senza fare attenzione ai veicoli che sopraggiungono, vero waaye, perché in vicinanza markaan ku dhownahay yiri di una piazzola di fermata di autobus meel ay basaska istaagaan per scolare kuwaasoo ardayda u shaqeynaya mise ardayda qaar. Può accadere waxay gali karaan yiri che i bambini ilmaha yaryar scendono markay soo degaan dall'autobus basaska senza fare attenzione ayagoona taxadir sameynin ay wadada iska soo gali karaan. Ai veicoli che sopraggiungono ayagoona baabuurta ag maraysiiyo oo maxaa la yirahdaa markay baska kasoo degtaan in gaari soo socda ayagoona iska soo fiirinay dalaq soo dhahayan uu dhahay wadada, vero waaye. Il conducente di un veicolo di grandi dimensione ha di norma la precedenza sul conducente di un veicolo più piccolo. Falso è perché il conducente idraulico di un veicolo oo gaari wada di grandi dimensione oo gaarigaasoo macnaha baabuurta way kala weyn yihiin sooma balliciisa gaarigiisi wixiis kala weyn yihiin di norma sida caadiga alla precedenza uu ka leeyahay sul conducente idraulico di un veicolo più piccolo, macnaha qof gaari weyn wato mar walba wuxuu mudnaanta ka leeyahay dadka baabuurta yaryar wato. Waa falso, meeshan sharciga ka yahay. Le macchine operatrici cincoli possono circolare ad una velocità superiore a 45 km/h. 45 km/h ma ku socon karaan macchine operatrici. Falso. In un passaggio a livello si possono trovare le corsie di accelerazione. Corsie di accelerazione, i passaggi a livello maxaa iska galay. Falso waaye, corsie di accelerazione autostrada markaa galaysid waaye. L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata in cui i veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulla opposite strisce. Allora, l'attraversamento meelaha dadka ay ka goynayaan yiri pedonale dadka è una parte waa qayb della carreggiata ka mid ah
in cui taasoo yiri i veicoli baabuurta devono dare inay laga rabo inay siiyaan la precedenza mudnaanta ai bedoni dadka che attraversano kuwaasoo goynaya sull'opposite strisce calaamada loogu talagalay dadka inay ka gooyaan darawalku waa inuu ka istaaga veer waay asla socnaa sama una zona a traffico limitato è un'area sempre vietata al transito dei veicoli a motore wuxuu yiri una zona meel yiri a traffico limitato trafficada laga kala yareeyay laga kala xadiday sharciga oo komunaha ama dowladda è un'area waa meel yiri sempre mar walba ama had iyo goorba ama had iyo jeerba saa u taqaaniin vietata laga mamnuucay al transito inay galaan dei veicoli a motore baabuurta motor ku xiran falso ay perché alcuni veicoli possono entrare, ok? I motocicli possono essere dotati di cambio automatico. Cambio automatico è vero, i motocicli waxay leedahay cambio automatico. casharkeena saan ayaan ku dhamaynay. Hadda waxaan fiirinaynaa natiijada. 1. Asxaabta qiimaha badan waxaan qalanay hal su'aal 17 waaye aan fiirino. I veicoli a due ruote con motore termico fino a 50 cm di cilindrata a velocità massima 45 sono ciclomotori. Sono a ciclomotori. La risposta era vera. Anigana waxaan ku dhuftay falso, okay? Inta kale waan wada saxnay. Insha Allah waxaan filayaa inaa wax badan ka faa'iidi doontiin. Waxaan u balanaa casharkeena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. يا هذا متيو نلو شيء اسكو اميني